caruusadu waxay dusha ka saaran tahay faras dadka xafladan joogana waxa ay ku fadhiyaan kuraas taasoo ah calaamad muujinaysa in qofka hoolkan ugu darajo sareeya ay tahay iyadu waa xaflad aroos oo loo qaabeeyay hab ka duwan aroosyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho alxamdulillah ku faraxsanahay maantina howlkan quruxda badan Istanbul abtiga ay ugu soo galbiyo ma sha Allah aad iyo aad sariirteeda anoo ku jifay ilmita maanta ay koowa shucuurteedana ma soo koobi karo waalidiinta mid ka mid ah lamaanayaashan ayaa arintan ku tilmaamaya mid qoyskooda u ah dhaqan soo jireen ah waxa ay sheegayaan in sidoo kale ay hibo u tahay dhaqashada fardaha waxyaabo badan oo dhisaya farxadda lamaanayaasha isguursanaya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay looga qayb qaadanaya aroosyada balse in farda loo adeegsada ayaa ah arrin ugub ku ah Muqdisho anigoo Nasr Xasan Abtidoona oo gabadhayda la aroosay Aasha Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen Bacdo waxaan u arkaa fardaha si qurux badan oo sharaf badan inaan hidda u leenahay anagoo reer Ceelbuur ka soo jeedna masana galareeri ka soo jeedna waxaan u arkaa si qurux badan aan leenahay fardo ugu yaraan 15 xabaan leenahay hidda u leenahay ma sha Allah tabarakallah qof kasta oo xafladan arooska caawa yimid waxa uu codsanayay in la saaro faraskan maadaama markii ugu horeysay ay tahay oo dadka ay ku cusub yihiin aniga laftigeyga maxamuud ahaan caawa markii ugu horeysay oo faras aan fuulo waxaanan uga mahad celinayaa arintan Yaxye oo ah ninka fardahan mas'uulka Yaxye ما شاء الله برنامجي تيفيga Shabeelle iyo gaar ahaan saaxiibkay soo faysanay aad iyo kaga mahadcelinaya sida quruxda badan ee uga soo qayb gashaan arooskan maanta waxaan rajaynaynaa muuqaal kale iyo kuwan ka qurux badan inaan soo bandhigi doono insha Allah maadaama uu yahay hal abuur soo jireen ahaa oo dhaqan hore ah laakiin aan xasuusino dadka runtii tv-ga Shabeelle iyo saaxiibkay soo faysanay kaamiramanka iyo baahda tv-ga waan uga mahadcelinaynaa waliba si qurux badan sida ay habmaamuus kale ay uga maalmaha nasniinada ayaa lagu madadaaliyaa sidoo kale guuyro fara badan oo ka qayb galaya tartamo orod ah oo dhalinyarada fardahan loo carbiyay ay ku soo bandhigaan xaafadaha magaalada Muqdisho yaala wadanka dhamaanteen waxana Soomaaliya maxamuud soo faysanay tv-ga Shabeelle Muqdisho